I just wanted also to ask you for advice because I am not a believer. I would want to believe in Islam. aqoonta ay diinta islaamka u leedahay waxa asal u ahaa iyadoo ay ka qayb gashay doodii Sheekh Axmed Diidaad. waxay ka soo safartay masaafo dheer si ay hortiisa ugu barato islaamka. waana mid ka mid ah kumanaanka qof ee ku islaamay gacanta Diidaad. bilowga noloshiisa waxa uu ahaa tagsiile. kolkaa ayuu noqday ducaadii ugu caansanayd qarnigii 20aad. Axmed Diidaad haldoorkii dacwada, dhulkii faqriga, dhulkii cunsuriyadda. Axmed Xuseen Kaadim Diidaad waxa uu ku dhashay sanadkii markuu ahaa 1918 magaalada Suraad ee dalka Hindiya. waalidkiisa ayaa ka shaqayn jiray beeraha iyadoo ay waaga adkeyd maciishada nolosha. waxay u soo hayaameen Koonfur Afrika daruufo nololeed oo soo food saaray awgeed. waxa ay da'diisu ahayd Axmed 9 sano. wuxuu ku barbaaray magaalada Durban halka ay soo degeen waxa gumaysanaya dawladda Ingiriiska. Diidaad waxa uu saamixi weyday waxbarashadiisa inuu sii wato dhaqaalaha oo ciriiri ahaa darteed. kolkuu soo gaaray fasalka 6aad waxa uu bilaabay inuu raadiyo shaqo si uu u saacido qoyskiisa. bilowgii horeba waxa uu helay goob alaabada lagu iibiyo inuu ka shaqo bilaabo. marka ka dambeeyda waxa uu gudagalay shaqooyin cusub. shaqaale ilaa daaci. waxa uu ka shaqo helay Axmed Diidaad goob ganacsi. goobtani waxaa lahaa ganacsada muslim ah waxayna ku dhaweyd meel lagu barto diinta Kiristaanka. inta uu gadayay dukaanka waxaa soo agmari jiray ardayda dhigata macadkan loogu talagalay in lagu barto habka loo faafiyo diinta Kiristaanka. ilaa goortii dambe ay ula yimaadeen Axmed si ay ugu dabaqaan waxa ay soo barteen iyagoo weydiinaya su'aalooyin xad dhaaf ah. waxayna ku oran jireen nebigaagu marar badan ayuu guursaday. Axmed xilligaasi waxa uu ahaa kuray yar oo aan cilmi badan u lahayn mas'alooyinka diiniga ah ee la weydiinayo, awoodna uma lahayn inuu ugu jawaabo. waxaa isbedelay noloshii Diidaad. taasi ayaana noqotay arrinkii ugu horeeyay uu ku tallaabsado. waxa uu noqday daaci diinta islaamka isagoo ka soo hormuuqday doodaha diimaha kale. Diidaad ayaa akhriyay kutub fara badan isagoona xafiday Injiil iyo Tawraat. waxaana dabcan u sii dheeraa Qur'aanka Kariimka. waqtiyada ka mid ah isagoo hagaajinaya dukaankiisa ayuu ku dhex arkay kitaab qadiimi ah. wuxuuna ahaa kitaab ciwaankiisu yahay muujinta xaqa. waxaana qoray wadaad Hindi oo la oran jiray Raxmatullaahi al-Hindi al-Karnaawi kuna noolaa magaalada barakaysan ee Maka. kitaabkani su'aalaha uu ka jawaabayay waa isla weydiimihii ay loo imaan jireen kuwa faafiya Kiristaanka. Sheekh Axmed Diidaad wuxuu ahaa shakhsi hibo leh qancinta dadka. sharaxadiisuna ay ahayd mid soo jiidasho leh, awoodna u leh inuu aftahanimadiisa iyo xikmadda Alle ku manaystay ku qanciyo qofka uu la doodayo. muxaadaradii ugu horeeyay waxa uu ku qabtay magaaladii uu ku soo barbaaray waxaana soo xaadirtay 14 qof. qaybtii labaad ee muxaadarada ayaa noqotay mid ay ka soo qayb galaan 100 qofood. wuxuu sii waday dadaalkiisa faafinta dacwada isagoona noqday xiddig ka soo ifbaxay Koonfur Afrika. afartameeyadii qarnigii la soo dhaafay Axmed ayaa booqday Pakistan oo waddan muslim ah. waxayna u ahayd fursad uu in badan ku baran karo islaamka. kontomeeyadii waxa uu ku soo laabtay Koonfur Afrika wuxuuna aasaasay markas islaami ah oo u talagalay fidinta dacwada. kutubta uu qoray sheekha waa 20 kitaab oo lagu tarjumay dhowr luqadood. sanadku markuu ahaa 1977 waxa uu Diidaad ka qayb galay dood ay ku wada dhamaayeen inta ugu saameynta badneed masiixiyiinta. waxa uu noqday markaa kadib mid saameyn ku leh dunida. waxayna kanaa'ista qaarkood bilaabeen inay ka falceliyaan doodaha Diidaad. waxa uu ka qayb galay muxaadarooyin badan kuwaasoo inta badan uu kula doodi jiray ragga ugu tunka weyn masiixiyiinta. waxaana ka mid ahaa doodihii ugu caansanaa Axmed Diidaad midkii uu la galay Jimmy Swaggart oo ka soo jeeda Mareykanka. Jimmy waxa uu ahaa xilligaasi ninka ugu xooga weynaa uguna caansanaa wadaadada masiixiyiinta. kulamada iyo muxaadarooyinka Diidaad ayaa noqday kuwa la isaga kala yimaado caalamka oo idil. waxaana sidoo kale lagu xisaabiyaa inuu ahaa shakhsi loo aqoonsan yahay ee degan Koonfur Afrika oo aanan ka suulin qadiyadda Falastiin ka hadalkeeda. waxaana sidoo kale ahaa mid ka soo horjeeda dhibaataynta dadka Islaamka oo aan lagu cadaadin mabaadi'diisa diiniga si xor ahna ugu dhaqmi karo diinta uu aaminsan yahay. xikmadiisa waxaa ka mid ahaa anigu muslim baan ahay. islaamku waa diin dhammaystiran laakiin anigu ma ahi islaam dhammaystiran. haddii aan gaf ku dhaco
islaamka ha canaanan ee aniga iyo canaano. waxa uu ahaa mid wanaag iyo sharaf eebbe siiyey, kuna caan ahaa erayada wanaagsan iyo aqoonta uu lahaa waxa uu ku doodayo. taasina waa sababta ay in badan ku islaameen hortiisa. sanadku markuu ahaa 1996 waxaa sheekha ku dhacay isagoo dhan xanuunka shalalka, isagoona sariirta saarnaa ilaa laga soo gaaro sanadkii 2005. da'diisuna ay ahayd 87 sano. waxa uu ka tagay dhaxal iyo summad wanaagsan. ilaa hadda waxaa muuqaaladiisa dib u daawada in badan, kuwaasoo yaalla baraha bulshada ay ku wada xiriirto. waxuuna tusaale suuban u ahaa ducaadda cusub. ardayda ugu caansanaa ee wax ka bartay waxaa ka mid ahaa daaciga Daakir Naik, isagoona aanan ka suulin xitaa qaabka iyo habdhaqannada Diidaad. haddii uu muuqaalkani ku xiiso geliyey, fadlan la wadaaga saaxiibada kale.